الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka ugu horeysa farxad weyn bay tahay inaan ku soo noqdo dalkii annagoo nabad qabno waxa aan u ambabaxay dalka Ethiopia aanu jaarka nahay waxaan la kulannay Prime Ministerka Ethiopia waxaan ka wada hadalnay danaha labada dal iyo bandaqada ayaan ka wada hadalnay si wanaagsanna waa isugu wada faranay waxyaabaha ku heshiinay waxa ka mid ah inaanu ka wada shaqeyno infrastructure ama muxuu ahay horta marka hore saxadda iyo nabadgelyada bandaqada aynu ku wada noolahay oo caadeyno ah waxaanu kala ka wada hadalnay sida uu isticmaalahay Ethiopia muxuu ahay dekada berbera isticmaalkeeda wadooyinka inoo dhaxeeya looga shaqeyn lahaa lightka waxa looga qaban lahaa muxuu ama muxuu electrica waxa looga wada shaqeysan lahaa nabadgelyada si wada jira mandaqada oo dhan aynu si wada jira wax uga wada qaban lahayn arrimaha horumarintooda oo labada dhinac ayaan ka wada hadalnay si wanaagsan uga isku afkaranay waa dal aynu jaarnahay waa dal walaalkeena oo weyn oo wax badan aynu wada qabsan karno weeye insha Allah ta'ala safkaradkaana waxaan raaci doonaa inaynu waxyaabaha aynu soo afkaranay aynu fulino taasoo wax u tarweyn labada dal iyo labada dhanba u noqon karta insha Allah ta'ala aad iyo aad baa u mahadsantihiin warukaay هذا كي يقوم بدأ بالسلام حاسس أسد الدنيا له ويتصعب مقعي هو السيد عبد الحسين وحاسس لو فيش كمان ناس تاني يعني والله جاي ما عنده كل ما قالتش لا هنا مرة بس كده ده شرح أرنت وقت بان كان لي مكان كي أرنت هذا كمان هلي وقت كل مية حزب كل كبده وهاي حزب كل مية برح السنة كبده هاي كان حوينا قرن كان وهاي وحي جهر شوقة إلى إسكاسو شرحه بتشيره تفضل مقعي وعبد الشيخ علي محمد أحمد السنة اللي جت في المذيع الدنيا اللي بسأله سؤال هراء طلع مركز هذا كان وصي بين الحاجات وما وصل واقعي إن كل لون جاي شوي لكنيه كبير لما تجي يكون لا صار ضغط أنا فاهم هذا الكلام بس هو خلاص طلبات لاش لبس أرنت وحي بالحوار كل بركة قبلنا صعادي أنا حقا قعدت إلى كتير الدروس كل ما أنا مبضي الدورة أنا بحوي قركه وأنا قلت لي الشركة قلت لي أدوك قلت لي لا حافظت قبيل هرت تاجري إذا كنت شفت أنا قلت لك أنا ودي كنت شفتها خلاص أنت في السؤالين نقول ما أنت إن شاء الله